maanta waxa uu halkan ku ansixiyey miisaaniyaddii qaranka 2022 runtii anoo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada gaar ahaan guddida dhaqaalaha xubin ka mid ah waxaan halkan runtii doonaya inaan tilmaamo kooban aan ka bixiyo anoo guud ahaan runtii golaha uga mahadnaqaya soo jeedinta ay nala qaateen ay ku ansixiyeen miisaaniyadda lifaaqii iyo wax ka beddelkii aan ku soo samaynay iyadoo guud ahaan miisaaniyadda sanadka 2022 mudnaanaha miisaaniyadda 2022 ee miisaaniyadda qaranka ee dawladda dhexe runtii xoogga la saaray dhinaca ammaanka oo sanadkan ciidamada qaranka mushaharkoodii loo kordhiyey sidoo kale ay ku jirto mudnaanahaasi tayeynta iyo kordhinta ciidamada boqolkiiba 30 loo kordhiyey oo xukuumaddoona boqolkiiba 20 soo qorshaysay sidoo kalena ka gudi ahaan boqolkiiba 10 aan kusii kordhinay marka runtii ka dawlad ahaan waxaanu u kordhinay ciidamada qalabka sida boqolkiiba 30 miisaaniyadda sanadka sidoo kale waxaa ka muuqata miisaaniyadda sanadkan iyadana in mudnaanaha la siiyey waxaa ka mid ah biyaha oo biyo ballaarinta caasimadda somalilan ee hargeysa ay miisaaniyaddan ka muuqato ay ku jirto sida ku xusan miisaaniyadda wasaaradda horumarinta biyaha iyo sidoo kale qodista dhaamam ama dhaamanka loo yaqaano xafir dhaamiska iyo ceelasha dhaadheer ee loo yaqaano boorholiska oo iyaguna ilaa 10 isu gaadhaya ayaa sanadkan wasaaradda horumarinta maaliyadda biyaha ugu jira miisaaniyaddeeda sidoo kale caafimaadka ayaa iyadana wax runtii miisaaniyaddan wax ka taraysaa oo tayeynta cisbitaallada iyo MCH-yada xanaanooyinka hooyada iyo dhallaanka iyo carruurta lagu xanaaneeyo ayaa iyadana wax lagaga qaban doonaa runtii kaabayaasha kale dhaqaalaha oo iyaduna sanadkan ay ku soo korodhay sanduuq horumarinta caasimadda kaabayaasheeda gaar ahaan waddooyinkeeda wax lagaga qabanayo oo xukuumadda ay soo kordhisay in $1 milyan ay ku sii bilowday hay-adaha kale iyo dadka kale danaynaya arrinta ay ka qayb qaadan doonaan sidoo kale dawladda hoose ee hargeysa iyo kaabayaasha dhaqaalaha kale ee waddanka sidoo kale waxaa jirta guud ahaan in miisaaniyadda qaranka ay boqolkiiba 36 ka tahay amniga iyo difaaca oo ciidamada iyo runtii kaabistoodu ama dhaqaalahoodu ay waxa weeye miisaaniyadda inta ugu badan ay ku jirto waxbarashada sidaa la sheegay iyo caafimaadka oo 300 oo shaqaale ah loo soo qoondeeyey gudi ahaan iyo ka gol ahaanna waxaan ku sii kordhinay 300 oo kale oo wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada marka guud ahaan noqon doona 600 oo shaqaalaha cusub oo shaqaaliyo kumeel gaarka loo qaadan doono guud ahaan waxaanu runtii guud ahaan hawshan aan gacanta ku haynay oo lagu wareejiyey 27 bisha December maantana waa bishii 15keedii 19 cisho ayay guddidu gacanta ku haysay 19ka cisho habeen iyo maalinba golaha iyo xafiiska guddida ayaa runtii guddida ay had iyo jeer ku shaqeynaysay oo arrinta ay kaga howlgalaysay guud ahaan xubnaha guddida oo dhammaan gobolada dalka ka soo jeeda golihiina matalayay runtiina golaha u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda anagoo gudinayna waajibaadkaygaasi runtii meelaha kharashyada aanu u kordhinay waxaanu ka soo jirnay kharashyo miisaaniyadda markii hore ay xukuumaddu u qoondaysay sida kharashka adeegga iyo alaabta oo boqolkiiba 5.5 laga jaray sidoo kale kharashka lama fulaanka isagana qayb laga soo jaray iyo madaxa la yiraahdo kharashyada kale oo isagana qayb laga soo jaray guud ahaan kharashyada la soo jaray oo lacagta laga soo jaray noqotay 9.5 bilyan runtii guddidu waxay u qoondaysay oo tala soo jeedinteeda ku jirtay in runtii ciidanka boqolkiiba 10 loogu sii kordhiyo oo noqonaysa in boqolkiiba 30 ciidamada mushaharooyinkooda ay kordheen kaabayaasha dhaqaalaha iyo runtii adeegyada bulshada oo 300 oo shaqaalaha cusub oo wasaaradda caafimaadka iyo loo kordhiyey iyo wasaaradda waxbarashada guud ahaan meelahaas iyo meelaha waxa weeye kaalmada dadka nugul ayaa loogu kala qoondeeyey sidii aad ka arkayseen soo jeedintii guddida runtii guddidu waxay soo jeedisay 18 soo jeedimood oo waxyaabihii aanu markaa ku aragnay miisaaniyadda iyo waxyaabaha runtii in halkaa laga sii soco qaran ahaan aynu u baahannahay sanadkan waxaa ku cusub in dawladdu ay soo barboos garsay xukuumaddu aagga warshadaha inay runtii dhul u qorshayso dhulkaasoo runtii mustaqbalka warshadaha aynu doonayno dalka in laisugu geeyo sidoo kalena arrimaha caqabadda ku ah aynu mustaqbalka ka tala bixinno oo tamarta korontadu ay caqabadda ugu weyn tahay iyadana sidii ay dawladdu ama xukuumaddu runtii loo samayn lahaa tamar ku filan oo warshadaha aagga warshadaha waxa weeye la siiyo oo laga iibiyo koronto jaban si waddankeenu wax soo saarkiisa gudaha ee loo yaqaano GDP uu kor u kaco inka uu ka yahay 2%
guud ahaan halkaa in kor looga qaado oo aynu qorshe ka yeelanno oo 5%, 10%, 12% la gaadhsiiyo si shaqo abuurka iyo wax soo saarka gudaha ay kor ugu kacdo. guud ahaan waxaa weeye mashaariicda horumarinta ee wasaaradaha ku kala jira hadday waddooyinka tahay iyo hadday caafimaadka tahay iyo haddii ay wasaaradaha kala tahay biyaha ay tahay waa 13%. waxaynu u baahannahay inaynu runtii iyadana qaybtaasi mustaqbalka ku darsanno sidii loo kordhin lahaa oo aynu kharashyada kale u dhimi lahayn oo gudkiijis u geli lahayn laakiin looga baahayay istaraatiijiyadii lagu gaari lahaa wasaaradaha dalka oo loo baahanyay iyadana in adeegyadii aynu bulshada gaadhsiino. marka qaran ahaan waxaynu nahay qaran kobcaya miisaaniyaddana waxay soo martay runtii taariikh dheer wakhtiyada qaar baa kharashkaynu gelayno iyo miisaaniyaddeenu runtii dhaqaalahayna soo gelaya dakhligu aad u kala badnaa oo la odhan karo $16 milyan oo doolar lagu shaqaynayey $50 milyan oo doolar lagu soo shaqaynayey $100 milyan oo doolar lagu shaqaynayey maantana $400 milyan iyo $500 milyan ay runtii miisaaniyaddeenu maraysaa. waxaanu ku bogaadinayaa runtii hawsha culus ee ay qaranka u hayaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo madaxdooduba inaynu runtii kula shaqayno maadaama qarankeennu dhaqaalaha maanta aynu halkan ku ansixinay uu ku shaqaynayo sannadaha dambena aynu halkaa inaynu ka sii soconno.